dhegeystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan oo waa 17 bisha Janaayo sanada 2018 waxaynu guda galeynaa barnaamijka kulanka Star arrimaha haweenka ayaynu kusoo qaadanaa oo markaasi hadba mowduuc dhanka haweenka ku saabsan aynu soo xulanaa inagoo maanta diiradda ku saari doona arrimaha haweenka arrimaha la xiriira waxaa jira in gabdhaha Soomaalida ay marka ay magaalooyinka yimaadaan oo ay kasoo tagaan meelihii ay joogeen ay bedeshaan magaca arrimahaasi maxaa u sababa in gabdhaha ay mar walba ka guuraan magacyadii hore ee marka loogu yiqiinay ee hooyooyinkoodii iyo aabooyinkooda ay u bixiyeen kadibna ay door bidaan casriga magacyada markaasi iyagu ay jecel yihiin ay door biteen inay baxsadaan arrimahaasi ayaynu barnaamijka maanta ku eegi doonaa dhageystee aarahdada Facebook oo aad uga qayb qaadan kartaa barnaamijka adiga oo fikirkaaga ku aadan arrintaasi sidaad u aragto iyo waxyaabaha sababa aad inala wadaagi karto sidoo kale dhageystayaasheena qadadka taleefanada barnaamijka waa ka qayb iyaguna way ka qayb qaadan karaan dhanka iyo waxaan siin doonaa dhageystayaasheena Facebook oo markaas iyaguna uga qayb qaadan karo ra'yigooda barnaamijka waxaadna inagu soo biri kartaa dhanka page-ka idaacadda oo ah Star FM in ku dhow 40,000 ayaa inaga mid ah adiguna naga mid noqo haddaba arrimahaasi la xiriira waxyaabaha keena in gabdhaha ay markaasi uga cararaan magacyadii hore markay magaalada yimaadaan arrintaasi waxaynu ka wareysanay mid kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed Cusub Cabdullaahi Maxamed iyadu waxay kamid tahay gabdhaha ku nool xaafadda Islee waxayna sidataa magacyadii hore Cusub ayaan kala sheekaystay arrimahaasi goorsii horeysa goor aan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana ka weydiiyay fikirkeeda ku aadan mowduucan maanta barnaamijka uga hadleyno maxaa u sababa inay gabdhaha magacoodii hore ee ka cararaan ee magacyo cusub baxsadaan sababaha keenaya kulli horta kulli midna intigeed waxaa leeyahay xagga ragga waaye gabadha dumarka haddee wax walba haddee jirkeeda muuqaalkeeda bedesho dhammaan isagoo intaas waxaa waaye wax loogu galaayo wax ka imaata xagga dhalinyaradeena ayaa soo bubadgaaya waxay isleedahay magacan cusub oo kaleeto qofka ninka ahi waa kusoo jiidan kartaa ama magaca maxaa dhihi jiray haddii la arko ama la maqlo aad usoo jiidan qorshadan waay camal marka aniga sababta waxaa leeyahay sidaas ayay tahay si ay xoogaa isku xayeysiiso oo maxaa dhihi jiray xagga bulshada ay wax soo jiidashada u samaysa camal ay magacyada hore kaga dhaafayaan oo kan cusub ula baxayaan marka maxaa ka dhalan karaa isdhihi kartaa marka loo eego in magacyadii hore ee dhaqankii Soomaalida gabdhihii loo bixi jiray ma dhici kartaa inay marka ilmaha hadda dhalanayo magacyo cusub ay yeeshaan oo magacyadii kale ay bedelmaan waxyaabo fara badan ayaa ka dhalan kara amaba ka dhashay sida hadeertaan aan ognahay walaasha Caaisha waxaa arkaysaa xataa hadeertaan hooyooyinka xataa inay la baxayaan maxaa la dhihi jiray magacyadan cusub ee dhankan carbaha inaga soo galay inkastoo ay fiican tahay cunugaadii ama inaad u bixiso magac xagga diiniyan magac jire ah ama asxaabile ama kitaabka lagu sheegay waxaa arkaysaa magacyo qaar oo aan kitaabkina ahayn oo maxaa la dhihi jiray diiniyanna iyo asxaabihi ahayn oo xagga carbaha laga soo munguriyo oo lala baxo marka waxyaabo fara badan ayaa aad uga dhashay hadda for example dhanka kaleeto markii aan ka hadalno aniga hadda kula hadla Caaisha magacayga waxaa la dhihi karaa magacyadii hore inuu ka mid yahay magacaygu waa Cusub maanta marka aan media marka aan ku dhex jiro ama aan maxaa dhihi jiray Facebook oo kaleeto ama dadku ay martaan ama asxaab cusub ama meel kulano oo kaleeto waxaa arkaysaa waxyaabaha hadda dadka ay ku dhaqmayaan ama dhalinyarada xataa ragga dadkooda ayaa sabab u ah marka aan ku dhahayo waa arkaysaa markii marka qofku magacaaga weydiiyo waxaan ku idhaahdaa waxaa la yidhahaa Cusub marka qofka inuu gadaal u tago uu leeyahay Cusub maya magac kale ii sheeg magac kale lagu dhahaa Cusub laguma dhihi karo
waa gartay marka wuxuu kaa doonayaa magacii kalead ku bedelato cusub bal fiiri wax kale taa iga raadina wuxuu isleeyahay qofkan been ay qofka waxa arkaysa ku soo wacay oo isbarateen waxaa ugu weyna magacaa waxaa leedahay cusub waa leedahay qofka soo ma aha inuu ku qanco maba ku qancaayo wuxuu isleeyahay magacaan hadduu doono weligiis hore umuusan maqlin sida hadda u badan tahay xataa magaca cusub ee bulshadeed hadda soomaaliyeed waa ku siiraanaysaa ama sida hadda la yidhaahdo kale dadka qaar oo laydii arka waxay dhahaan waxaad haysataa magaci ayeeyooyinkana haysataa aniga cusub ahaan waxaa u arkaa arrin aad aan ugu faano oo aan ku qanacsanahay in aan magacayga layla wadan in magacaygu uu maasha allah ummadda dhan uu maasha allah maanta meel qiimala uga jiro haddii xagga dhaqankeena la dhaho magacaas fasiraadiisa haddii la dhaho dhul cusub ah uu yahay oo fasiraadiisu ay aad u fiican tahay aniga waa ku faanaa magacayga laakiin xagga bulshada marka aad aragto way ay kasoo horjeedaan dadka sida ay u badan yihiin dad qaar waxay kuleeyahay magacayeeya ayaa wadataa dad waxay kuleeyahay magaci hore ayaa wadataa dad waxay qof wuxuu kuleeyahay magacad ma lagu dhaha ee iisha caaisha iyo waxaa lagu yidhahdaa faadmo iyo mustaaxa iyo magacyadaas oo kalaa lagu dhaha markaas waxaa idhahdaa adiga su-aala ay weydiisay magaca ayaa tiri magacaasana kuu sheegay soo ma aha waa inaa ku qanacdaa waa gartay weligeedu ma maqlin waa gartay cusub marka sababtaasaa marka waxay u tahay ayaa leeyahay inay sabab u tahay sababtay u bedelaan dumarka ama gabdhaha yaryari ama generationka hadda cusub magacyadooda xagga bulshada sabab ku ah waa gartay gabdhaha soomaalida ee magacyada bedelanaya waxay ka caranayaan magacyadii hore marka hadda loo fiiriyo kale waqtigan lagu jiro waayadii hore waxaa jiray in magacyadii hore la baxsan jiray balse hadda dadkii magacyadii lahaa ayaa magacyadii bedelanaya ilmihii hadda dhalinaya oo kale saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa magacyo bedelkan saameyn aada culus ayay ku yeelan kartaa anagu hooyadii haddaan nahayna waa inaan arrintaa kasoo horjeesanaa aadna uma fiicna saameyntuna aad ayay u culus tahay gabadhii dumarka ahayd magacyo hadda qaar waxaad arkaysaa aaba la qaban jirin oo dhalinyarta hadda jirta ay la baxayaan marka bay aad bay saameynta u badan tahay waxaa leedahay magacan israa'iil xataa qofka baxsanaya xataa inuu qof uu dhihi jira magacan xataa isagoo garanay ayuu iska baxsanaya marka bay saameynta aad ayay u culus tahay dadka ayagoo xagga dhaqanka iyo diinta intaba aana fiirinayn ayay magacyada cusub la baxaan saameynteedana lama soo koobi karo waa gartay cusube weli ma la kulantay qof magacaadana ku aqoonin intaad magaciisii hore ugu wacday ma yaro kaa xanaaqay wallahi way dhacdaa igama xanaaqin laakiin waxaa igu dhacday inuu si surprise camal uu iisoo fiiriyey oo aniga xataa ayaaba oo aan dhahay hebel magaciisa maa qalada iblaahi magaceeda maa qalatay kadib bay dhaha maxaa kaa qaldan camal bulshaana lagu dhex jiray oo kaleeto dadka kaleeto marka magacaan cusub ay ku yaqaanan ana kii hore ku aqaanay mogtaa marka markaas kadib aan arkay inaan offset galay oo sorry marka way dhacday waa gartay marka ugu dambeyntii waxaan la hadlaynaa waan haweenka oo magacyada gabdhaha bedelanaya bal ugu dambeyn maxaad kusoo gabagabayn lahayd cusub ahaan adigu waxaa sidataa magacaagii hore gabdho fara badanaa jira oo magacyadii hore ka guurayo qiimaha magacyadii hore ay leeyihiin iyo weliba waanadaada ku aadan arrintaa ku saabsan dhanka dumarka aad iyo aad baad umahadsan tahay fursada qiimaha badan aad siisay walaasha ama aad siisay Star FM dhammaan walaalaha ku xiran Star FM iyo dhammaan bulshooyinka maanta ay gaari doonto codkeena waxaan special khaasatan dumarka magacyada bedesheen oo magacyada cusub la bixeen waxaan aad ugu baraarujin lahaa inay magacyadooda hore ay ku faraxsanaadaan ay ku baraarugsanaadaan maxaa la jiray ay dareemaan in magac qiimo leh ay lahaayeen maxaa yeelay qof walba waxa uu ku faanaa dhaqankiisa iyo hidihiisa aniga cusub ahaan waan ku faanaa magacayga waayo maxaa la dhihi jiray xagga dhaqankeena markii la fiiriyo waxa uu wataa maxaa la dhihi jiray qiimo aad u fara badan iyo faa'iidooyin fara badan ama micno weyn ayuu ku fadhiyaa teeda kaleto hooyaday macaan iyo aabahay ayaa iila baxeen oo waa la igu waqlalay magac marka meel aan laga keena aan aqoonin oo la igu waqlalin inaan isku bixiyo waa aad wax aad u liidata ayay ila tahay marka inay dhalinyaradu ama dumarka hadda jira ay ku qanacsanaadaan ama haweenku ay ku qanacsanaadaan magaci waalidkooda u bixiyey magaci waalidkooda uu u bixiyay inay ku qanacsanaadaan ayaan soo jeedin lahaa oo ay magacooda ku faanaan oo aysa iska bedelin oo weliba xataa haddii naanaysi lala baxaayo magacyadii hore lala baxo ayaa aniga soo jeedin lahaa waa tahay aad bay umahadsan tahay cusub cabdulaahi maxamed oo markaasi barnaamijka ka qeyb qaadanaysay dhanka waraysiga kulan kasta arrimaha haweenka ku saabsanaa
dumarka oo markaasi waqtigan ka cararaya magacyadii hore ee loo bixiyay kadibna baxsanaya magacyo kale. barnaamijka arrimaha haweenka waxaynu fursad u siin doonaa qaar kamid a dhegeystayaasheena oo qodobkaasi aragtiyo kala duwan kasoo dhiibtay.